السلام عليكم. maanta iyo la yaab kale diirka haragga ama maqaarka waa xubin weyn oo muhiim noo ah shaqo ahaan waa difaaca iyo isku dheelitiraha jirka maqaarka la'aantiis ma jirto qof u noolaan kara sida caadiga ah ee uu maanta u nool yahay maxaa yeelay waxaad u nugushahay infekshan kasta oo ka yimaada waxyaabaha kugu xeeran ee deegaanka ah muuqaalkeenna maanta ayaan si hufan idinkugu soo gudbin doonaa sheekada wiil yar oo ku dhashay maqaar la'aan anigoo isdhinac taagi doona waxyaabaha keena iyo sida uu xaalkiisu noqday dhallaankaas yar ka hor muuqaalka haddii ay tahay markii kuugu horraysay janaalka aadna danaynayso sheekooyinka caynkani oo kale ah fadlan laag dheh sabskraibna saar janaalka gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaalada aan soo gelinno ee waxtarka leh aan bilaabo fiidiyowga kowdii janaayo sannadkii 2019 magaalada Texas ee Mareykanka waxaa ku dhashay wiil lagu magacaabi jiray Jaabiri Garaay miisaan ahaan waxa uu ahaa mid leh 1 kg iyo bar badanka jirkiisa ma lahayn wax haraga ama maqaar ah marka laga reebo qaar ka mid ah lugaha iyo madaxa ayna u dheereed in lafaha daboolka waa indhaha ay ahaayeen kuwa aan dhammaystirnayn xiranna arag ahaan dhaqaatiirta isbitaalka waxay ku dabooleen dahaar macbil ah kaasoo u baahan beddelid joogto ah si looga dheeraado in caabuq ama infekshan uu ku dhaco loona raaciyo dhallaanka boomatooyin u roon maqaarka kana difaaca wixii ilma aragta ah ee sababa cudur dhallaanka ayaa isbitaalka ku qaadanaya noloshiisa sidoo kale hooyada ayaa waqti xadidan loo oggolaa inay la kulanto cunuggeeda iyada oo xiran dhar daboolan iyo galoofis ama gacmo gashay si looga taxadaro Jaabiri Garaay dhallaanka la dhiban maqaar la'aanta horaantii inkastoo dhaqaatiirtu aysan caddayn sababta mushkiladdan balse waxaa dhif ama naadir ah in lagu dhasho maqaar la'aan sidaasi waxaa sheegay qaar ka mid a dhaqaatiirtii maqashay dhacdada ama keyska ka qayb qaadatay maqaarka waa xubinta ugu weyn jirka waxay noo qabataa shaqooyin badan waxaana ka mid ah difaaca iyo xakamaynta kulaylka iyo qabowga jirka maqaarka la'aantiis ilmaha yari waxay la kulmaan dhibaatooyin fara badan waxaa jira dhibaatooyin ama cudurro badan oo keeni kara ilmaha inay ku dhashaan maqaar la'aan ama maqaar khafiifka xaalad ka mid a cudurradaas waxaa loo yaqaanaa afka qalaad epidermolysis bullosa waa xaalad ku timaada qaab iska dhaxlid ah oo waalidku u gudbiyo awlaadiisa maqaarkuna uu noqonayo mid jilicsan lehna biyo ama bucoolo yaryar macadyada caafimaadka sida National Institute of Health waxa ay sheegeen in bucooladani biyaha ee maqaarku yeelanayo ay ka yimaadaan hadba goortii ay wax ku dhacaan xoqaan ama ismarmaraan maqaarka iyo wax kale sida jug ama jirka nafsad ahaantiisa dadka qaba cudurkan epidermolysis bullosa waa leeyihiin maqaar balse dhibaato dibadda kaga timaada ayaa keenta in maqaarku uu meesha ka baxo ilmaha yar ee qaba cudurkan waa ku dhashaan maqaar laakiin dhibka jira ayaa ah inaysan u muuqan kuwa leh maqaar khafiif ahaanta dartiis darnaanshaha cudurkan waa ku kala duwan yihiin bukaannada waxayna ku xihan tahay nuuca hidde-sidaa ee mushkiladdu ay ka jirto bukaannada qaar waxay u noolaan karaan si caadi ah halka qaarkoodna ay geli karaan xaalad daran waa hadba sida ay saamayntu ugu timaaday calaamadaha cudurkan waxaa jira farqi ama kala duwanaansho xaddi weyn sida xaaladaha saa'idka ah ilmaha ku dhasha cudurkan epidermolysis bullosa waxay ku leeyihiin bucoolo biyood meelaha aan lahayn maqaarka
kadib daawaysinka bocolabyeedkaas meesha ay ka baxeen waxay noqonaysaa meel haar ah oo laga yaabo inay saamayn u geysato neef mareenka kadibna ay xumaato hawo qaadashada qofka ama cunuga saamaysanka haaraha keliya kuma eka neef mareenka balse waxa kale uu saamayn u geysan karaa cunto mareenka iyo caloosha dhallaanka ama qofka bukaanka ah xaaladdan naadirka ah sida la sheego waxaa lagu arkaa dhowr qofood halkii milyanba waana xaalad leh saamaynta aan hore u soo sheegay hooyada cunuga maqaar la'aanta ah dhashay ee jaabiri garaay ayay dhakhaatiirtu u sheegeen in jirrada cunugooda uu ku dhashay laga yaabo inay tahay epidermolysis bullosa sidaa daraaddeed iyada iyo aabbaha cunugaba waxay u sheegeen in loo baahan yahay inay maraan baaritaan la xidhiira cudurkan si loo ogaado inuu ayaga uga yimid cudurkan iyo inay xaalad kale jirto in looga shakiyo xaaladdan jaabiri ayaa keentay ka gadaal in jaabiri lagu arkay xabadkiisa haar uu ku sameeyey qalkiisa ama garkiisa daaweynta cudurkan ayaa waxa ay ku xidhan tahay hadba calaamadaha bukaanka ka muuqda iyo ka fogaanshaha jugta isxoqidda jidhka iyo daaweynta dhaawacyada si fudud oo deggan xaaladda kale ee keeni karta in maqaar la'aan ay ku dhashaan ilmaha ayaa loo yaqaanaa afka qalaad ablesia catis congenita waa xaalad aysan abuurmayn wax maqaar ah meelaha qaar dhallaanka bukaannada badankood cudurkan waxaa lagu arkaa in madaxooda uu ka maqan yahay maqaar yar balse waxaa jira kala duwanaansho calaamaddan ah xaaladdan ayaa saamaysa sida ay sheegaan waaxyaha caafimaadka 10,000 kunba hal qof la tacaalidda cudurkani inta badan meelaha yaryar ee uu maqaarku ka maqan yahay si iskooda ayay u soo dhashaan balse maqaarka meelaha weyn ka maqan waxa u baahdaa qalliin si loo daaweeyo dhallaanka aan maanta ka sheekaynano dhowaan ayaa laga soo saaray isbitaalkii uu ku jiray waxa uuna maray qalliimo uu ka mid ahaa in maqaar la saaro laguna guulaystay balse waxaa jira qalliimo kale oo indhaha loogu furaayey balse guul daraystay welina waa lagu dadaalayaa lamana ogaan waxa u keenay cudurkan ma ablesia catis congenita mise waa epidermolysis bullosa muuqaalkeenna maanta intaas ayuu ku egyahay daawade haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar hana iloobin inaad subscribe saarto channelka gambaleelkana aad furato commentiskana iigu reeb haddii aad rabtid muuqaaladani oo kale fiidiyowga inoo xiga insha allah